بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Sooyaal TV waa midnimo sabti axadna soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha May sanadka 2021 qodobada aad ku daawan doontaan warka Sooyaal TV waxaa ka mid noqonaya taliska booliska degmada Caawda oo soo saaray awaamir cusub dowladda Soomaaliya oo markii u horeysay ka hadashay dagaal dhawaan ka dhacay degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo ka furmay magaalada Muqdisho dowladda looga soo horjeeday dowlad goboleedka Jubbaland oo ka qabsoomay degmada Balad Xaawo ee ka tirsan gobolka Gadow akhbaaradka caalamkana waxaad ku daawan doontaan dowladda Masar oo Itoobiya ku eedeysay inay ka baxday heshiiskii biyaha webiga Niil qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka Sooyaal TV balse marka hore daawadayaal u diyaar garooba warka oo faahfaahsan isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay taliska booliska degmada Caawda ayaa waxay soo saareen awaamir cusub oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida deegaanka haddaba waa kan taliyaha ku-xigeenka booliska degmada Caawda Bilaal Xasan oo ka hadlaya arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan wargelinayaa bulshada Caawda iyo nawaaxigeeda ku nool in muddo ah inuu wada hadal soo socday ku salaysan laamaha amniga sidii ay uga howlgali lahaayeen degmada Caawda oo amnigeedu dabac badan ka jiray loona go'aamiyay in si buuxda looga howlgalo wada shaqayn dhab ah laga sameeyo bulshada waxaan ku wargelinayaa maadaama wada hadal guurtiga maamulka laamaha amniga ay isku waafaqeen sidii looga howlgali lahaa degmada Caawda ayadoo la kaabayo laamaha amniga sidii loo garab istaagi lahaa hormuudna loogu noqon lahaa bulshadu waxaan u sheegayaa inay si buuxda oo la shaqeeyaan laamaha amniga gaar ahaan dhalinyarada inay si buuxda oo la shaqeeyaan waxa la caadeystay in gacan ku dhiglo oo bila sabab qof ku dilay fakado ay dhacday kow iyo labo ayna san dhici doonin degmada xindaabkeeda la adkeyn doono ayadoo loo dhan yahay oo dukumeenti ballaaran loo saxiixay laamaha amniga cidii u hoggaansan weydo waxa laga qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan ayadoo loo dhan yahay cid walbo oo amirtaas qaadan weydo waxa la ogaanayaa in amniga ay ku tahay lid waxaana howlgalku uu ka bilaabanayaa hubka bila sharciga ah ee deegaanka lala marayo dadka u dulqaatay ama damiirka u yeeshay inay dariiqa xiraan ayaguna waa laga howlgali doonaa waxay la mid yihiin hubka bila sharciga ah sababtoo tahay bilicda magaalada iyo hubka bila sharciga ah waxa laga shaqeynayo koowaad weey waxa xigo nadaafada oo magaalada aad u liidato iyo nawaaxigeeda ayadana in gacan ballaaran laga geysan doono lagana shaqeyn doono laamaha amniga qorshaha ay ka howlgalayaan ay ka tahay dariiqyada la iscaadeystay guri walba hortiisa in la xiro dariiqa in la cariiriyo oo la furi doonaa jidadka in badan qoriga bila sharciga tilaabo sharci baa laga qaadi doonaa waxaa soo socday muddo dhow howlgal ballaaran baa soo socday waxaana la waafajin doonaa dadka iyo deegaanka inta ku nool sharciga qofkan u hoggaansaminna waxa laga qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan waxaan ka codsanayaa bulshada reer Caawda inay u hoggaansamaan laamaha amniga la shaqeeyaan laamaha amniga hormuud u noqdaan laamaha amniga waxa la caadeystay in la fududeeyo ama la qariyo gacan ku dhiglaha iyo wixii la mid ah waxa laga hortagi doonaa muqaadaraadka waxa laga hortagi doonaa nadaafad darrada waxa laga hortagi doonaa dariiqa la xirtay ee la caadeystay waxa laga hortagi doonaa dadka magaalada rabo inay wax ku sameeyaan haddana rabo inay xadka ka tilaabaan dibadbax ballaaran oo laga soo horjeedo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee ka tirsan gobolka Gadow
waxaana warbixin amuurtaasi la xiriirta isla balad xawo nooga soo diray wariyaha Sooyaal TV balad xawo uga soo warramay Abuukar Cali Geedi. banaanbaxani oo ay soo qaban qaawiyeen ururada bulshada degmada Balad Xawo oo ayna ka soo qayb galeen maamulka gobolka Gedo oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulagareed maamulka degmada Balad Xawo iyo boqolaal dadweyne reer Balad Xawo loogana soo horjeeday maamulka Axmed Madoobe ayaa saaka waxa uu ka qabsoomay faras magaalaha degmada Balad Xawo dibadbaxayaasha oo sitay boorar ay ku daabacan yihiin erayal lid ku ah maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyntii waxay isugu yimaadeen aargada degmada Balad Xawo halkaas oo ay mas'uuliyiinta iyo dibadbaxayaashuba ay khudbado dhaadheer ka jeediyeen. Soomaaliya ha noolaato dabadhilifka ha dhaco shisheeye kalkaalka ha dhaco Jubbaland wixii dhibaateynaya ha dhaceeno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad baan idin salaamayaa maanta shacab weynaha halka isugu yimid degmada Balad Xawo oo kala duwan mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo gudoomiyaha degmada iyo guddigiisa gudoomiyaha degmada iyo guddigiisa ururada haweenka dhalinyarada culamaa u diinka maanta looma kala harin waad u jeedaan ummadda Soomaaliyeed ay dhammaan gobolka Gadana sidaana banaanbaxa uga socdaa goobihii kale ee Jubbaland oo banaanbaxa uu ka dhici lahaana horaan idinku sheegnay dadka ayaga waa dadka xornimada loo raadinayo waa loo diiday waana la hortaagan yahay in ay dareenkoodaas muujiyaan waxaan rabnaa halkaan inaan kala hadalno inta ay ka hadleen ururadii haweenka gabdhaha annagii culumadii odayaashii waxgaradkii aan muujinno dareenkanaga iyo mowqifkayaga oo saakaan isugu soo baxnay gobolka Gedo dhammaan iyo meelo kala duwan in Axmed Madoobe waqtigiisa uu dhammaaday Axmed Madoobe waqtigiisa waa dhammaaday dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiintii Jubbaland iyo dadkii waxgaradka ay hawsha waday Axmed waxa la siiyay waxay ahayd iyo beesha caalamka muddo 2 sano labadii sanana waa dhammaatay sababta loo siiyayna waxay ahayd annagana inta tanaasulaadka aan ku samaynay in Axmed xal uu keeno dib u heshiisiin keeno isu keenidii dadka uu keeno ma aysan dhicin arrinta iyadahay waa laga waayay wuxuu galay waxaysan Jubbaland u dirsan Axmed Geednaar waxaan leenahay mana matali karo haddii ay daacadnimo jirto haddii ay jirto shuruuc caalami oo la xushmeenayo ay jirto shirk waqtigaaga waa dhammaaday shirka looga hadlayo masiirka nabadda Soomaaliya haddaana reer Jubbaland waxaa nooga qayb galaya Axmed Buulagareed arrintaas ma isku raacsanahay waxaa nagu matalo gudoomiyaha gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya prime ministerka beesha caalamka African Unionka waxaan ka codsanaynaa haddii aad qadarinaysaan xuquuqda 100,000 oo Soomaali ah oo hal gobol degan qofka saxda anagana matalo oo noo ah safiirka hana matalo anigoo afka odayaasha dhaqanka ahna afhayeenkoodii gobolka Gedo ama degmada Balad Xawo gaar ahaan waxaan ka hadli rabnaa maanta oon u soo bannaan baxnay 2 qodob koow waxaan rabnaa annaga doorasho loo dareero oo degdeg ah rabnaa oon ku xirneen wax shuruuda qodobka labaad waxa weeye annaga Jubbaland baan nahay gobolka Gedo haddaan laakiin waxa uu hadda Axmed Madoobe dhoobdhoobay ama uu wato wax shaqo oo ku leenaa ma jiro horaan uga hadalnay waxaan leenahay shaqo kuma lihin magacaabida wasiirada asaga laftigiis waqtigiisi waa dhamaadaan leen waxaan u sheegaynaa adduun weynaha international community-ga dawladda Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliya danayso inaysan Jubbaland dawlad loo dhan yahay ka jirin
jubbaland maadaama dowlad loo dhan yahay aysan ka jirin maadaama jubbaland dowlad loo dhan yahay aysan ka jirin waxaan codsanaynaa in dowladda goboleedka jubbaland loo dhigo gogol ay ku heshiiso oo ay ku dhisato maamul loo dhan yahay gobolka gado wuxuu ka kooban yahay 9 degmo jubbalandna waxay ka kooban tahay 14 degmo ilaahay baa laydinku dhaarshay wax xaq inaysan ka jirin baan idiin sheegaynaa jubbaland dadka la soo shaqeeyana aniga dadkii la soo shaqeeyay baan ahaa dadka maanta la magacaabay dadkii maanta la soo shaqeeyay baan ahaa dadka u macno badanna waa ahaa maalinka u dambaysa oo tagay oo Kismaayo tagay oo madaxtooyada jubbaland aniga anaba aan galay ilaahay baan ku dhaartay gabadha wasiirka saaka laga dhigay aniga soo socdo wasiirka ku sheegay Axmedoobe irinka lagu reebay ayada annagu Axmed waa diiday dadku u dambeeyana waa ahaa dalkan annaga iskale dadkiisuna waa inaga dalkan annaga iskale dadkiisuna waa inaga inuu daga waxaan ahayn way dadkeena ma kaafise alla ninkii diidayow nadaa waa nadaayo naga xisho أحمد مدابة مداني سام يا عيني كو قصبي كرة رئيس وزراء الرابلة وعن لي هاي رابلو رجبلا عيان كاي قبني لكن رجلنا ذا وحيد لما نيسا مركز أحمد مدابة تاجر مدعوين محمد عبد الله فرماجو وقبل كجدو يشعب كذا كقال قلد ويني جبلا كدب مركو أحمد مدابة سيا قنصل لبصنا مدعوين فرماجو وعكو سنين وعفسنا ويديس رئيس وزراء الرابلة وعكو سنين إنه سنقلب نجل هوري أيها دول من الأوسمي أحمد مدابة وحنو سمين لها النهار مجرو dadka naga wuu laayay dhulka naga wuu qaatay baddi wuu gatay dhuxushi wuu gatay xuduudi wuu gatay wiilashanada wuu qaatay shabaab ayuu noo adeegsaday war maxaad maanta sugaysaan in sheega war maxaad sugaysaan in sheega Axmed Madoobe down Axmed Madoobe down 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 Axmed Madoobe down Axmed Madoobe down 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 dooni mayno dowladda Soomaaliya nin calan la iigul wada xukuma inay tiraahdo madaxweyne maamul goboleed way gobolada dhintay la fariisata maaha waa nin daba go'an oo askari Kenyan ah oo markii horena dambiil lagu keenay meesha cod Soomaalina aan rabin aqal Soomaalina aan rabin aqligiisana uu yaalo meesha la yiraahdo Nairobi aqligiisana wuxuu yaalaa Nairobi وأساق ثلاثة لقى رواين هورا لويديو أدينين هورا عقلة أما لا تلاقى أنا معناها إن أنا إسلام إن الودوك فيهن أحمد دمر وحشينا يعطي عسكودرينا باش عالمك أنت وحجرتك مامورة صوماليا دولة صوماليا أحمد مدوبي وندعي وأنن كومي تنصر ديك فرح كل شيء الشعب كيسمعيه هبين بقولة قلنا يي دولي مينو يريد بلان ولا على نهاي وأكل فوقناي وحبيس ما قاعد يصنع من كان والن مع الشوين أو مع الشوضاء أحمد مدوب كده كذا أو كذا كوا شيء نجعشت هدانا نجعشنا بدوايس يقانا ريد بلانو abuukar cali geedi warbaahinta Sooyaal degmada balad xawo waxaa xarunta tendhada Afazione ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay maalintii koowaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasi oo saaka ka furmay magaalada Muqdisho shirkan uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha shanta dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana looga hadlay sidii loo wajihi lahaa xalka gaarista arrimaha doorashooyinka haddaba markii shirkaasi uu soo gabagaboobay ayaa waxaa ka warbixiyay afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo waxaa maanta oo sabti ah magaalada Muqdisho gaar ahaan Afazione ka furmay shirkii wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble shirkaas waxaa ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu uga mahad celiyay madaxda inay soo ajiibeen codsigii iyo ka qaybgalkii caazumaadaha ee uu diray
waxaana hadda shirku u socdaa maaragtay si habsami leh madaxdu way wada hadlayaan insha Allah haddii abaydmana wax alla wixii ku saabsan shirkaasi ka soo kordha marka ay soo baxaan boo idin la wadaagi doonaa ilaa laakiin hadda intaan idiin sheegi karno waa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmay madaxdu ay si saraaxad leh u doodayso waxaana dabcan laga wada hadlayaa arrimaha doorashooyinka waxaan markan Soomaalida oo dhan maaragtay ay ka rajaynaysaa annaguna aan rajaynaynaa in shirkaas uu ku dhamaado mid natiijo wanaagsan dadka Soomaaliyeedna ay ka maqlaan wax wanaagsan qaar ka mid ah xubnaha midowga murashaxiinta inta badan saamilayda siyaasadda ee dalka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa horay u soo dhaweeyay shirkan iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyay inay ka soo baxaan heshiis laga gaaro doorashada Mahad Yuusuf Sooyaal TV Caabudwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay markii horeysay ka hadashay dagaal dhawaan ka dhacay magaalada Jowhar haddaba waxaa warbixin amuurtaasi la xiriiray inuu eegayo wariyaha Sooyaal TV Farxaan Suldaan Xaaji Farxaan Anshax wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xudume Jimcaale ayaa markii hore ka tacsiyay dadkii ku dhintay dagaalkii magaalada Jowhar ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo kuwa maleeshiyaadka mucusleyda wasiirka oo qayb ka ahaa mas'uuliyiinta maanta Muqdisho ku soo dhaweysay madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in dhibaatadii ka dhacday magaalada Jowhar ay mas'uuliyadeedu lahaayeen dad finowadayaal ah waxaan hubnay in madaxweynaha Hirshabelle uu noqon lahaa madaxda ugu horeeya ay imaada magaalada Muqdisho balse dhibaatooyinkaas dhacay ayaa dib u dhigay dawladdu ay garowsan tahay arrintaasi ayuu yiri wasiir Xudume laamaha amniga magaalada Jowhar ayaa dagaalkii halkaasi ka dhacay waxa ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen maleeshiyaad burcad ah oo dhacay dhibaatooyin kale la geysan jiray galbeedka magaalada Jowhar Farxaan Suldaan Xaaji Farxaan Anshax Sooyaal TV Caabudwa haatan daawadayaal waa akhbaaradka caalamka ee dawladda Masar ayaa waxay Itoobiya ku eedeysay inay ka baxday heshiis hore loo gaaray oo ku saabsanaa biyaha webiga Niil iyo sida loo qaybsanayo wasiirka arrimaha dibadda dawladda Masar Saamix Shukri ayaa cadeeyay inay muhiim tahay heshiis laga gaaro ka hor biyo buuxinta labaad ee biyo xireenka webiga Niil haddii ay dhacdo arrinkan waxaa la filan karaa xiisad ka dhalato gobolka ayuu yiri Saamix Shukri wuxuu intaasi ku daray in Itoobiya ay mas'uul ka noqon doonto wax kasta oo ka dhaca laakiin Itoobiya wali wax jawaab kama bixin hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar wasiirka arrimaha dibadda Masar wuxuu cadeeyay inay Masar awood u leedahay inay ilaashato danaheeda isla markaana ayna u dulqaadan doonin isku day kasta oo ka hor imaanaya danaha shacabkeeda iyo guud ahaan gobolka Shukri ayaa sheegay in buuxinta labaad ee biyo xireenka Niil ay ka dhigan tahay in Itoobiya ay ka baxday xeerarka caalamiga iyo heshiisyadii hore looga gaaray biyaha webiga Niil ugu dambeyntii dawladda Masar ayaa sheegtay in dhibaatada iyo xasuurin darrada ka dhalata biyo xireenka ay guud ahaan saameyn doonto bariga iyo geeska Afrika taasi oo mudan in xal waara laga gaaro si kastaba haatee hadalkani ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaan wali wax jawaab aysan ka soo celin Itoobiya daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warwixii aynu dalka iyo dawladda kaga haynay warka waxaan la socodsiinay anigoo ah Mahad Wayl Warsame dhanka kaamirada waa Farxaan Anshax iyo farsamadii Mahad Yuusuf inta aanu ku kulman doono warkan warka xigan waa guud ahaan bahda Sooyaal TV isku duuban oo idin leh